waxaan fahmi lahay dhammaanteen aan fahmi laanahay sidana qaamkeedu sababayaan cayb dood khilaaf isqabsi qof walbana qaamka ayuu ku hadlayaa waxay doonayaan in laga tago laakiin sababtu maxay tahay waxaad aaminsantahay in gabadha muslimadda ahay ay dhibsanayso waxay leeyihiin cod ma laha gabadha muslimadda saw hadda si wanaagsan idin lama hadlaayo waxay aaminsan yihiin inaan xorriyad u baahanahay waxay doonayaan gabdhaha reer galbeedka kale inaan noqono oo agtooda ka tahay calaamad dumar maxay kabadha dheer rooseeto dhar gaagaaban sidaas ayaa xorriyad ah mise waxaan u xiranaa si isku mid ah ama muuqaalka ayaan wadaagnaa gabadha muslimadda ah aad bay uga macno weyn tahay muuqaalka jidhka annagu ma doonayno in laynagu garto muuqaalka dharka waxaan doonaynaa fikirka aan xambaarsanay in aan ugu qiimaysi ee ma aha dharka gaagaaban ee aan xirannahay ma waxaad u malaynaysaa inaan qasab u xidhannay mise in ninkaygu igu qasbayo anigu weli ma guursan mise aabbahay ayaa igu qasbaya dhaqaabka waan xirtaa maxaa yeelay allah ayaa sidaa amray waxaan doonayaa inaan allah raaligeliyo annaga allah ayaan u khushucsannahay faashinka iyo bulshada kama amar qaadano bal u kaadi adigu waxaad leedahay waa laydinku qasbay xidhashadiisa balse adiga ayaa nagu qasbaya bixintiisa waxaad aaminsan tahay inuu caqabad u yahay xiriirka laakiin waa maxay macnaha dhabta ah ee xiriirku leeyahay sida ku xusan qaamuuska Oxford waxaa loola jeedaa kow in macluumaad la isdhaafsado iyadoo la sheekaysanayo qoraal iyo in la adeegsado wadooyin kale amaba labo fariimo diridda macluumadeed sida telefoon ama kombiyuutar haddaba sidayna qaabka caqabada ugu noqon karaa xiriirka haddaba aan tijaabino si wanaagsan ayaan kuu maqlaa markaad qof la hadlaysid uma baahnid in aad wejigiisa eegtid sida markaad teleefonka ku hadlaysid oo kale uma jeedid qofka haddaad doonaysaan inaad naqaabka reebtaan marka hore telefoonka joojiya mise waxaad leeyaabantihiin qaabka aan ragga ula dhaqanno asal ahaan annaga ragga amaba la dhaqanno alla ayaa amray labada jinsi inay xuduud kala lahaadaan si aysan marnaba isu dhexgelin ragga iyo dumarka nimanka waxaa la amray inaysan na soo eegin annagana isasturno waxaan intaas raacinayaa anigu ma doonayo inaan ka mid noqdo ama waxaan taxaddi kula jirnaa mujtamaca reer galbeedka maxaa yeelay waxaan go'aansanay in aan is-asturno xilli dadka badankood ay isqaawinayaan waxaan joognaa waqti saamaynta aflaamta ibaaxiyada ay sii siyaadayso sharaftii gabdhahana ay hoos u sii degayso gabadha reer galbeedkii waxay ka dhigan tahay alaab warbaahinta lagu iibiyo waxaa looga faa'iidaystaa danooyin maadi oo gaar ah sida iibinta baabuurada xitaa iibinta shukulaatada okay doodu way dhan tahay waxay ila tahay inay dowrkeeni yimiday si aynu niqaamka u baranno qaybtan yar ee dharka ah sida aad taqaanaanba way qiimaynaysaa way ilaalinaysaa waxay dareensiinaysaa jidhkayga inaan anigu mas-uul ka ahay ma jiro qof ii sheegaya waxa aan xiranayo ama waxa aan dhahayo iyo qaab muuqaalkayga alla mooyaane tan ayaa xorriyadayda dhabta ah in aad ka xorowdid faashyoonka iyo caadada bulshada sidan ayaa xorriyadda saxda ah in aanad yeelin sida ay raggu doonayaan dumarnimada saxda ayaa sidan ah maxaa yeelay waxaan dhowraynaa quruxdeena intana lagu danaysan lahaa qurux darteed inanta muslimadda ay dhibaatada calaamad uma ahan balse tan reer galbeedka ayaa sidaa ah sidaa daraaddeed ayaan niqaamka idigu boorinaynaa waxaan xal u gudbinaynaa mujtamaca dibudhiciisu ku fogaaday islaamku waa diinta keliya ee mujtamac dhisan horumarin karta si aan dib ugu soo ceshan wixii aan weynay sharaf karaamo iyo ixtiraam gabdhaha oo keliya ma aha markana sidoo kale dhammaan ragga ugu dambeyn waxaa yimid waqtigaagii iyo kaygii si aan niqaabka u xirano